بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaad janalkeena gacmo furan iyo qalbi saafi ah. waa idin soo dhaweynaa Soomaali weyn, waan idin salaamahay meel walba joogtaan, maalin wanaagsan. maanta mawduuceena waxaa waaye jaceelka. jaceelka mar badan waa kasoo hadalnay. jaceelka subxaanallah dareen waxaa waaye nafta ku beeranto oo la dareemayo oo ilaahay nagu nicmeystay nicmooyinka ilaahay oo na siiyey oo alxamdulilah inaad dhahdid waaye jaceelka maaha kan lamaanaha ka dhexeeya oo kaliya. jaceelka waa noocii badan yahay. soo jaceyl muqadas kan waalidka iyo adiga kaala dhexeey, kan adigii ubadkaaga kaala dhexeey, kan adiga iyo walaalaha kaala dhexeeyo aad ayuu wuxuu u yahay muqadas, ma duugoobo mana daxaleysto. jaceyl waxaa jira saaxiibo aad sanooyin wada ceeshteen, aad ceesho milix tihiin oo kii walaalaha mararka qaar ka sara maro oo walaalahaaga jaceylkaas asagana waxaa maasha allah tabaaraka allah ilaahayaan jaceylka bixiyo subxaana wa tacaala. asaga haddaanu dadka isjecleysiin ma isjeclaan karno, qalbiyada allah xukumo. marka maanta waxaan ka hadlaynaa qayb ka mid ah jaceylka oo inaad jeclaatid qof adiga aadan xaq u lahayn inaad jeclaatid. way jirtaa qof aadan xaq u lahayn inaad jeclaatid. mararka qaar qalbigaaga iyo dareenkaaga ayaa ku khiyaameynaya, khiyaanay kugu sameynaya. soo wax aadan ahayn, qof aadan ahayn inaad jeclaatid ayaad jeclaanaysaa. qalbiga adiga ma xukuntid. jaceylka ma ka amar qaadanayo, sax ma ku dhahayo waa qofkaas jeclow qofkaas jeclaanin ma ahan. ilaahay quluubta dadka isjecleysiinaya ma ku weydiinayo. soo qofkii waxaad arkaysaa adoo jeclaaday subxaanallah. haddaadan adiga jaceyl haysanin oo naftaada aadan jeclayn wax ma jeclaan kartid. soo qofka jeclaanayo, dadka wax jeclaanayo, dadka noloshooda dhan ay jaceylka tahay oo qalbiyada wanaagsan leh ayagaa jaceyla ka buuxso. waxaadan haysanin ma bixin kartid. marka jaceylkii anaga buuxo anagoo dhan maasha allah tabaaraka allah. qofka aan jaceyl haysanin oo faqiirka ahna ilaahay subxaana wa tacaala ha kuga arsaaqo. wax qurux badan waaye, nicmo waa ilaahay uu ku siiyo. jaceyl naftaada aad jeceshahay maasha allah tabaaraka allah. jaceyl aad jeceshahay kuwa aad la nooshahay maasha allah, walaalaha saaxiibada dariskaaga jaceyl aad jeceshahay bii'ada iyo deegaanka aad ku nooshahay aa jiro subxaanallah. aad jeclaanaysid wax ilaahay kugu abuuro waaye. soo qalbigaaga ya ka buux adiga dhan jaceyl socdaa tahay maasha allah tabaaraka allah. noloshaada dhan qurux waaye. wadanka aad ku nooshahay aad jeclaanaysaa. mararka qaar waxaad dhehaysaa yaa ilaahayow maanta waxaan ka cabsaday inaan khiyaano wadankeygii. soo qalbigeygii meeshii aan ku noolahay aad buu u jecel yahay. jaceylka aan u qabo mararka qaar waxaan shaki iga galaayaad leedahay kii wadankeyga aan u qabay amaan khiyaamay wadankeygii. dareen waaye, wax ka awood badan waaye, wax ilaahay oo kugu maneystay waa maasha allah tabaaraka allah. jaceyl markaad maqasho adigoo dhan subxaana allah waa farxaysaa. saas ayay tahay noloshaada maalin walba inaad wax positive aad maqashid, wax qurux badan inaad maqashid si aad ugu noolaatid nolol qurux badan oo degan oo farxad leh. marka jaceylka maanta waxaa ka hadlaynaa jaceylka qofka aadan xaqa u lahayn aad jeclaanaysid muxuu yahay, sababta maxay tahay. sabab ma jirto. ilaahay subxaana wa tacaala asagaa kugu beeraayo. mararka qaar waxaa laga yaabaa qofna asaga ku kasbanaayo, dadka ayagaa ku kasbanayaan. dadkani mararka qaar kasbasho ma ahan, aragtiduu ka bilaabanaa. soo indhaha waaye. waxaa laga yaaba wax aad hal mar aad aragtid inaad jaceyl aad u qaadid. qof aad hal mar aad aragtid inaad aad u jeclaatid oo qalbigaaga uu deganaado subxaana wa tacaala oo kugu arsaaqa jaceylkiisa. mararka qaar jaceyl waxaa jira cadaab aad la dhibaatoonaysid. kaasoo kaleento waa jaceylka aysan ahayn inaad jeclaatid qof aadan xaq u lahayn. waa keligaa midka aad jeceshahay aan lagula wadin. adi keligaa ayaa wax jecel, qofkii kale ma oga. mararka qaar waxaa waaye ma ogaba inaad jeceshahay. adiga keligaa ayuu kuwa qarsoon yahay. xataa ma dhihi karto qofkii waa ku jecelahay. waxbaa diidaya, waxbaa maanacaa inaad tiraahid. mararka qaar waxaad jeclaanaysaa qof xaasle xaasle waa jeclaan kartaa. xoraa tahay mee qalbigaaga ilaahay kusoo arsaaqay jaceylkiisii. adiga ma diidi karto, laakiin waxaad xaq u leedahay jaceylkaas amaad xor u tahay inaad go-aanka gaartid. inuu sii socdo iyo inaad dhahad joog meeshaad iga joog jaceylkaano aniga ha igubin inaad tiraahid. inaad kusii socotid doorashada adaa iskale. marka qof aadan xaq u lahayn markaad jeclaatid qof maxay ahaatay qof kale uu leeyahay markaad jeclaatid. rag afar oo banaan mararka qaar su'aalahaas kugu soo dhacaysa markaa meeshaan hadaa mareen
afar u banaan asaga afar u banaanta laakiin adiga doorashadaada leedahay waxaad jeclaan kartaa waxaad nolosha la wadaagi kartaa qof kaligiisa laakiin ma dhicin soo qalbigii ayaa doortay qofkaas qof kale qalbigiisa uu ku sii tahay mararka qaar qofka inuu ku bedela laga yaabo uu ku jecel yahay maasha Allah uu ku jeclaado qofkii amba xaaskii kale in ka badan inuu adiga ku jeclaado laga yaabaa subxaanallah ilaahay asagan ku arsaaqay jaceelka laakiin ma qurux badna jaceyl aadan xaq u lahayn waay markii qofkaas aad guursatid nin xaasle ah oo ku jeclaado in ka badan intuu jecel yahay xaaskiisii hore jaceelkaas jaceyl aadan xaq u lahayn waay waxaan ka hadlayaa ani aragtideeda waay soo qasab maaha inaad qaadatid qasab ma aha inay ku galaan waxaan sheegaya waxna waa wax cilmi ah waxna waa wax maxay ahaatay dareen iyo gudahayga kasoo baxaa iyo aragtideeda aan ku cabiro waa qof walba oo bini aadan aragti ayuu leeyahay marka jaceelka aad jeclaanaysid ee qof xaasle ah oo haddana kusii jeclaanayo ee in ka badan intuu jecel yahay in xaaskiisa kaas waa kan xaq darada ah jaceelka kaloo xaq darada waxaa waa jaceelka aad jeclaanaysid qof aan ku jecleen xaq daro waa inaad jeclaatid qof aan ku jecleen waa jeclaatay jooji ha isbahdilin ha isliidin mararka qaar wuxuu ku gaarsiinayaa meel aad ku liidan tahay meel wuxuu ku gaarsiinayaa dulinimo ah kaasoo kaleenta waa jaceelka xaq darada ah xaq daro waa jaceelkaasoo kaleenta xaq daro waa jaceelkaasoo kaleenta jaceyl naftaadii dulminaayo oo naftaadii xuquuqdeedii aad meel ugu dhaceysad ee xaq daro waa jeclaan kartaa laakiin jooji markaad aragtid inuu qaadanayo raaxadaada inuu qaadanayo karaamadaada wax ugu weyn oo bini aadanka dhumiy karaamada waay karaamadaadii inaad jaceyl ku bedelatay ma qurux badna wax adduunka yaalo dhan karaamadaada laguma bedesho adoo karaamo laha ilaahay ku keenay waa ku karaameeyey ku dhahay rabbil caalamiinka karaamadaada god kala gal karaamadaada dunida kala tag kala hooyo dunida karaamadaada kan ku seejinayo jaceylkaas waa kan xaq darada ah jaceylka aad jeclaanaysid qof aan ku jecleen kaas waa xaq darada jaceylka aad jeclaanaysid nin xaasle ah oo markuu kusii jeclaado xaaskiisii hore intuu jeclaa in ka badan xaq daruu noqonayo jaceylkaaseti xaq dar ayuu noqonaya sax qalbiyada ilaahay xukumo ilaaha maxay dadka isjecleysiiyo mararka qaar dadaala samayseed kuga jeclaanaya mararka qaar asaa kusoo doonanayo qofkii oo ku jeclaanayo asaa ku gelinayo xeradiisa asaa kugu qasbayo inaad jeclaatid laakiin markuu ku jeclaado in ka badan inta xaaskiisa uu jecel yahay gabadhii way duceynaysaa soo maha mararka qaar gacmay kor taagaysaa habeenkii inay ku inkaartaa laga yaaba adiga mararka qaar hadafkaaga ujeedadaada maha inaad dulmisid gabadha kaleenta oo lagula qabo laakiin jaceylkii wuxuu noqday mid xaq dare ah gabadhii gacmahay kuu taagaysaa way ku soo inkaaraysaa marka inkaartaasiita mararka qaar waxaa laga yaabaa inay gardare ay tahay mararka qaarna inay ku asiibto ay kugu dhacdaa laga yaabaa ay gar noqoto marka waa qurux badan tahay qof walba inuu helo jaceyl sax ah inaanu helin jaceyl xaq dare ah laakiin mararka qaar way imaanaysaa haddii ay imaato jaceylkaas xaq darada ah ay dhacdo inaad jeclaatid naftaadana ha dulminin qof kaleentana ha ogolaanin dulmiga hana dulminin qof kaleenta ha dulminin naftaada qof kalena ha dulminin jaceyl xaq ilaahay ku sii jaceyl daacad oo kaliga aad leedahay ilaahay ku sii jaceyl aan ku bahdileenin ilaahay ku sii waana helaysaa soo wax walba aad rabtid dunida waa la helaa wax walba aad rabtid aad ku hawood aad ku naalootid waa la gaaraa marka fikirkaaga badal haddii aad aaminsan tahay jaceylku waa cadaab haddii aad aaminsan tahay jaceylku waa murugo haddii aad aaminsan tahay jaceylku waa diif iyo dandaaro maya jaceylka qurux waa jaceylka farxad waa jaceylka haddii heerkii aad taagneed ka hor intaadan wax jeclaanin aanu kaa sarraysiinayn aanu kaa dhigayn heer ka wanaagsan jaceylkaas jaceyl xaqdare ah waay jaceyl dib kuu celinayo jaceylkaas dulmi waay jaceyl naftaada maxay id karaamadeeda qaadanayo maya anaga marabna jaceyl noocaasiyta jaceyl ku ciseynayo jaceyl ku sharfaayo ayaad helaysaa ha ogolaanin jaceyl ku liidaayo jaceylka qurux waa jaceylka maasha Allah tabaaraka Allah markaad magaciisa aad qashay kaliya aad dhool cadeenahay subxaanallah marka waxaa la rabaa jaceylka saxda markuu kugu soo dhaco qofka aad jeceshahay wiil ha ahaado amba gabar ha ahaado inaad dhool cadeysid inaad farxad ee qalbigaaga ay ka buuxsanto ay camirto farxad laakiin markii ay kugu soo dhacdo qofka aad jeceshahay murugo iyo maxay aad wij cabuus iyo saad iyo ilin jaceyl ma ahan kaas jaceyl maaha cadaab waay jaceyl sax ee maaha jaceyl xaq dare ee waa jaceyl ciqaab ee waa ciqaab aan rabbigaaga ku ciqaaban ha is ciqaabin waa helaysaa qof ku qalmo waa helaysaa ka daawow
intay goor tahay haddii aad jeceyl hal dhinac haysatid aad la daalaa dhaceysid aad la ooynaysid oo danahaagii iyo noloshaada iyo mustaqbalkaaga ku seejinaya iyo karaamadaada maya ha ogolaanin. jeceyl waxaa helaysaa ku ciseynaya. jeceyl waxaad helaysaa markaad qofkaas noloshiisa aad ku biirtid ama ay kusoo biirto adigoo dhan aad noqonaysid iftiin, adigoo dhan aad noqonaysid farxad, adigoo dhan aad noqonaysid qurux ayaad helaysaa. jeceyl kaa dhigaayo 10 sano da aadan lahayn ku saaraayo, jeceyl kaa muujinaayo diif iyo dandaro, jeceyl kaa muujinaayo maanta oo dhan ooyin iyo calaacal iyo maxay ahaatay murug. jeceyl sax waa jeceyl xaqdaro waay. ha qaadani jeceylka xaqdarada, ha qaadani jeceyl saxa adoo heli karo. ha ogolaanin inaad ku noolaatid jeceyl xaqdare. waa rajeynaa inaad naftaada aad jeclaatid. markaad naftaada jeclaatid ayaad wax jeclaan kartaa. waxaad haysatid ayaad bixin kartaa. waxaadan haysanin baqiilaad ka noqonay. soo maba haysatid ma bixin kartid. marka naftaada jeclow, ha lagu jeclaade. isjeclow, naftaada cisey, kow ayada ka dhig. ixtiraam, meelan kuu qalmin ha galin. dunida maalmo kooban waa wax walba ood hiigsanayso. xataa haddii aadan gaarin meel ka qurux badan ayaa kuu dambeysa. ha isduleynin, ha ogolaanin jeceyl xaqdare. waa ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay. فيديو waxay inta aan kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jaa